dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhaxmaray sanadihii 1970-aadkii wuxuu ahaa dagaalkii ugu weynaa ee ka dhaxdhaca laba dawladood oo Afrikaan ah taariikhda casriga ah iyadoo ay saameyntiisu gaartay afar qaaradood ee caalamka ka mid ah. Yurub waxa ay inta badan la safteen dhaqaale military iyo siyaasad ahaanba dawladda Itoobiya gaar ahaan dawladihii Midowgii Sovieti iyo xulafadii Warsaw. dhinaca kalena Kuuba iyo dawladihii Shuuciga ahaa ee qaaradda Ameerika waxay si toos ah uga dagaalamayeen safka hore ee dagaalka iyadoo wadamada Carabta iyo Aasiyaba ay qaarna la safteen Soomaaliya qaarna Itoobiya. dagaalka jabhadaha Soomaalidu ay ka sameeyeen gudaha dhulka Soomaalida Itoobiya wuxuu si fiican u bilowday isla markiiba kadib markii ay Soomaaliya ka degtay wareegeedii xukunka ururka Midowga Afrika. dawladdii Soomaaliya waxa ay tababar iyo hubayn u sameysay jabhadii xoreynta Soomaali galbeed iyo jabhadii xoreynta Soomaali Abo. sidoo kale waxay taageereysay jabhadii Eritrea ka dagaalamayay iyo kuwii Tigray iyo Oromo oo ka dagaalamayay dhankooda. dagaalkii jabhaduhu wuxuu ku fiday gobolada Harar, Koonfur Bari, Baali iyo Sidaamo iyagoo ku guuleystay inay burburiyaan awoodda ciidamada booliska, militariga iyo isku socodka maamulka ee goboladaasi. waxayna isugu keeneen ciidamada Itoobiya inay ku soo aruuraan saldhigyada waaweyn ee military iyo magaalooyinka. shacabka deegaanadaasi waxay si xad dhaaf ah u soo dhaweeyeen jabhadaha Soomaali galbeed iyo Soomaali Abo. horaantii 1977 jabhaduhu waxay gacanta ku dhigeen inta badan dhulka Soomaali galbeed iyo Sidaamo. inkasta oo maamul ahaan aysan sameyn isbedel weyn, waxa ay awooddaasi ku gaareen taatikada ah ku dhafo ka dhaqaaq iyagoo garaacay meelaha ciidamada Itoobiya ka jilicsan yihiin. kadibna shacabka oo taageersanaa dhex galayay taatikadaasi waxa ay ku qasabtay in ciidamada Itoobiya ku ururaan saldhigyo gaar ah oo aysan si xor ah ugu socdaali karin dhulka Soomaali galbeed iyo Sidaamo. ugu horreyn Soomaaliya waxa ay xiriirka iyo xarkaha u jartay Midowgii Sovieti iyo xulafadii la jirtay marka laga reebo dalkii Shiinaha. dagaalku waxa uu u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya si markii ay ciidamada Soomaaliya kaga adkaadeen dagaalka ciidamada Itoobiya waxa si cad garb iyo gaashaan buuxda u siiyay Itoobiya wadamada Kuuba, Koonfurta Yemen, Midowgii Sovieti. dagaalkii xoreynta Soomaali galbeed waxa uu ahaa dagaal dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya. haddaba sababta dagaalkani ku bilaabmay waxay ahayd khilaaf ka taagnaa gobolka Soomaalida Itoobiya. gobolkan oo Ingiriisku 1954 ka iibiyay wadanka Itoobiya dadkiisa iyo deegaankiisaba, waxaanay dawladdii Soomaaliya ee uu horkacayay Maxamed Siyaad Barre go'aansatay inay dib u soo ceshadaan dhulka Soomaaliyeed. waxaana dawladdii Siyaad Barre ugu horreyn ku baaqday dib u soo celinta dhulkaasi hab iyo hanaan siyaasiya. waxaana dhowr mar la isku hor fariistay mees lagu gurfeynayay masiirka ummadda dhulkaasi. ugu dambeyn waxaa fashilmay dhammaan wada hadalladii siyaasadeed ee ku saabsanaa arrinta gobolka Soomaali galbeed. intaa kadib ciidamadii Soomaaliya waxa ay weerar cad oo xareyn ah ku qaadeen wadanka Itoobiya. haddaba dagaalka toddobaadkii ugu horreeyay waxa ciidamada Soomaaliya u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan bartamaha iyo koonfurta gobolka Soomaali galbeed. intuu dagaalku socday waxa ay ciidamada Soomaaliya marba marka ka dambaysa ka soo hoynayeen guulo aad u ballaaran oo isdaba jooga. waxaana ciidamada Soomaaliya daba socdeen oo dabada kaga jireen ciidamada Itoobiya ilaa ay la galeen goobta loo yaqaano Sidaamo. markii la gaaray Sebtembar sanadkii 1977 ciidamada Soomaaliya waxa ay gacanta ku dhigeen dhammaan gobolka galbeed. waxa kale oo ay qabsadeen goobo iyo magaalooyin muhiim ah oo ka baxsan gobolka. kadib markii ciidamada Soomaaliya ay go'doon galiyeen magaalada loo yaqaano Harar, waxa dagaalka soo galay oo Itoobiya soo garab istaagay wadankii la oran jiray Midowgii Sovieti. Sovietku waxa uu taakulo dhan walba ah siiyay ciidamadii dawladdii Itoobiya. waxa kale oo uu Sovietku ugu deeqay Itoobiya in ka badan 18,000 oo askari oo ka yimid wadanka Kuuba, taasi oo keentay in ciidamadii Soomaaliya dib loo soo jabiyo laguna qasbo inay ka baxaan gobolka Soomaali galbeed. intaasi kadib ciidamadii isbaahaysigu waxa ay xoojiyeen weerarada bilihii Diseembar iyo Janaayo ilaa Febraayo. ugu dambeyntii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay noqdeen kuwo la go'doomiyo oo xitaa diyaaradaha huwantu waxa ay garaacayeen xadka gobolada waqooyi. markii ay ciidamadii Soomaaliyeed muujiyeen dagaal aad u xirfadaysan ayay ciidamadii huwantu waxay go'aansadeen in la sameeyo istiraatiijiyad cusub oo lagu jibiyo ciidamadii Soomaaliyeed. kadib markii ay Soomaalidu fashilasay dhammaan taatikadii hore oo ay huwantu ku dagaalgalaysay, waxaa la aasaasay golaha sare ee istiraatiijiyadda military kaasoo ka koobnaa saraakiil sarsare oo Itoobiyaan ah
kuwa midowgii Sovieti iyo Kuuba ka socday waxaana hogaaminayay General Vasily Ivanovich Petrov oo ahaa taliye ku-xigeenkii koowaad ee ciidamada lugta ee midowgii Sovieti. laga bilaabo Febraayo ciidamadii huwantu waxay si xad dhaaf ah u soo weerareen ciidamadii Soomaaliya iyagoo dhinac walba haystay wixii ay u baahnaayeen, halka ciidamadii Soomaaliyeed ay ka muuqatay daal fara badan saadkii oo ka sii gabaabsi ah iyo iyagoo aad uga sii fogaaday furuntii dagaalka. tiradii ciidanka xoogga dalka ee ka qayb gashay dagaalkaasi ayaa ahayd 35,000 askari, 23 guuto oo infantry ah tiknikadooduna u dhameystiran tahay, 9 guuto oo taangiye ah, 9 guuto oo madaafiicda goobta ah iyo 4 guuto oo ciidamada cirka Soomaaliyeed ah. guud ahaan diyaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 diyaaradood oo 24 ka mid ah ay ahaayeen MiG-21. waxyaabaha saaciday ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka oo aad akhlaaqdooda iyo tababarkooda u sareeyay, sidoo kale moraalkoodana aad ayuu u sareeyay, qalab ku filan ayay haysteen. xoogga dalku wuxuu aad uga dhisnaa dhinaca guutooyinka madaafiicda. madaafiicduna waxay ahayd hubka ugu muhiimsan oo ay wax ku weerarayeen. quwadaha kale ee Soomaaliya waxaa ka mid ahaa ciidamadii Kumaandooska, kuwaasoo loo tababaray qaab aanay cidina hor joogsan karin. meelaha ay daciifka ka ahayd Soomaalida waxaa ka mid ahaa Soomaalida oo aad ugu yarayd ciidamadii ka soo horjeeday ee huwanta. halkii askari ee Soomaaliyeed waxaa ku soo aadayay 12 askari. midowgii Soviet oo muddo dheer xulafo la ahaa Soomaaliya soona tababaray ciidamada xoogga dalka iyo saraakiisha Soomaaliyeed, markan uu ka soo horjeedaa wuxuuna yaqaanaa dhammaan xeeladaha dagaal iyo meelaha ciidanka Soomaaliya ka jilicsan yihiinba. sidoo kale waxaa dhib ahaa hagaajinta iyo isbeer u helidda hubka iyo qalabka Soomaalida wadatay, maadaama ruushkii sameeyayba uu ka soo horjeedo qoriga rasaastiisu go'do iyo wixii xumaadaba halkaas ayaa lagaga tagayay, loomana helayn isbayr iyo qalab lagu dayactiro. dagaalkan Soomaalida cid kula socotay ama gaashaanbuur la ahayd ma jirin. Mareykanka oo ay Soomaaliya islahayd xulafo ka dhigo, madaxweynihii xilligaasi ayaa diiday oo yiri waxayna la tahay inaanay Soomaaliya xaq u lahayn inay weerarto Itoobiya. dawladihii kale ee jeclaa inay Soomaaliya garab istaagaanna waxa ay ka cabsanayeen Mareykanka ama Ruushka, sidaa daraadeed waxay go'aansadeen inay iska aamusaan.